عصايا عواواسك تقبلوا هاي عاديات باريدي سلام عليا وروا قولوا سني عاديين واشقي سي ما شاء الله دورشادي مريكا كان ورقة درينا نكي جو بايدن ها إلهي أمركي كما دارين دار سوغا دار سوغا سودا وهذا هذه كدبا جاي وواسك تقبلوا ها قبلوا فارح ولا الكيس معو كي كيرا بشير بلا متارين حيث قرص عيب كيس قرشو درس كيس كنولا ورونا قرسيكو ساها جابا كجلكتي مع الشورية بنا وين شنطة بقى بقري هذه إلا إذي استاقوا يوك هذه إلا إذي استاقوا إذي كدبا جايو ماشي وحمر ياوي هذه شان ويتر قدرنا يبرف إنه قداي يا وحال هالمر السبت اللي كلال المقرتين كلال مالو كيم إذا اللي قرين انت يا ريس تاقي يا وان إذا كنت رطورة يا وحقير حالته ماشي مريس سونا وهذا كلال والن باجر رال نقضوان الشغل كجران وررت النكي ترامها وقراري وحولي هي محكمة بان هذا والله إيجا شبطي عدد كيجيبو تاجيا هاد عن إذا لها الليو انت تيفيا داونيسي وحاو جو بايدن وكوغول استيت كويسكنسن او طبعا عدة وحاو استانيك اللي يرادا جو بايدن لما بقول أفرتن إيا سيداد عد بوهيشتا عد كماها كان مليون كلمات ترينيو وحالا ترينيا استاد والبع عدد قوني يلا دهو مقرر سايه بقعيسي بقى عدد قوني بي الكترونيك اللي يرادو كولوج اللي يرادو الليين او استاد والبع ان قوني بو الليين تراهان دادك الدقن بالله حسابيا وحالا سيا دلقيت بالسيا أريزونا وكوية طبعاً وحاكو قوليستي نيكا اللي يرادو جو بايدن هذا وحاوبا هنا كلمة وحاوي استادكا نيفادا او اللحة إيا استادكا ميشيغان او اللحية طبعاً عطا دقيشت استادكا ميشيغان او اللحية طبعاً عطا او هذا وكوريا نيكا اللي يرادو جو بايدن iyo lix cod oo magaraysaa state-ka Nevada oo uu hadda ku horeeyo ninka la yiraahdo Joe Biden lix yaad waxaad ku daraysaa 16 waa 22 cod weey 22 cod baad 248 cod u geenaysaa aad iyo aad odaga taraamaha halkaas ku haraya looma baahno state-kan Pennsylvania ee la isku haysta hadda ee magaraysaa qaylada badan ka taagantay looma baahno North Carolina ayadana qaylo badan ka taagantay looma baahno 15 cod baystaan Georgia state kala dhaxana looma baahno aadiyaad bal hadalkayga aad u dhageyst Nicky Joe Biden ha ee walaalkeen ha ee Soomaalidu way jeclay markay idin leeyahay walaalkeen waxa weey gaaladu anigu ma kala jeceli laakiin Trump hooyooyin badan oo Soomaaliyeed dalka waa la wada yimid dad badan oo adduunyada ka yimid ba waxa ku yimaadeen qaxootinimo ay ku yimaadeen Trump markuu sida u qaatay xilka 2016 waxa uu baangareeyay ilaa 7 dal oo dalkeena Soomaaliya ku jiro ka baangareeyay dalka Mareykanka soo galaan waxa kale uu baangareeyay dadkii Soomaalida ahaa ee qaxootinimada lagu soo qaaday xiriyaha qaxootiga laga soo qaaday ayuu ayagana baangareeyay hadalkayga aad u dhageyst waxa uu kala qaaday hooyooyin iyo caruur isdhalay oo darbiyada ka soo booday iyo caruurtiina meel ku xareystay hooyooyinkii aabayaashiina dib uu wadabadooda ugu celi waraa kullu waa shaqeynaya aadiya hurdalaam baa nagu dhacday xalayt waan idinka farxinayaa ninkii taraamaha godkiisay biyo ugu galeen cadaanka cusuriyiinta ahaa ee calamada loo ordayay waa ka guulaysanay si yar baa looga guulaystay waxa kaliya hadda la sugayo oo already ba ay green ba blue macnaha light blue ba saaran meesha la yiraahdo muxuu ahaa Michigan
oo waxaa saacadaha labada saac ama saddexda saac ay soo socdo waxaa laga yaabaa in lagu dhawaaqo inuu ku guulaysto ninka la yiraahdo Joe Biden kululaade maanta aad baan kululaay abaar baa idinka maqnaa bal lagayst haddaan helna Nevada oo 6 cod ah iyo Michigan oo 16 cod ah caawa waxaa weeye waxaa dhaarta sugaya ninka la yiraahdo Joe Biden ninka la yiraahdo Joe Biden yaa codka sugaya midda kalena waa idinka dabageeraya dadka social media isticmaalaya Facebook dacwaa ku socoto Facebook weyn dacwaa ku socoto waxaan ka ahayn idaacadaha waaweyn dhageysto idaacadaha waaweyn ee wax xaqiijinaya waxaan ka ahayn looma ogolo inaad soo boost garaysid dhageysta Facebookya badan baa la xiray war ma haysaan dad baa iska degdegayo live waad soo gali kartaa waad analyze garay kartaa laakiin sawir ha soo qaadin wax fawdo eegna ku qori Facebookaaga daqiiqada yar kadib hawadu ka baxaya sababta loogu talagalay waxa weeye si loo hubiyo doorashada Mareykanka inaysan Russia iyo Chinese iyo khalkhal aysan soo galin sidii 2016kii ayaa la rabaa Arizona waxa ku guuleystay Joe Biden 11 cod baan ka soo qaadanay barta 10 codna hadda daqiiqada ka hor intaan live ka soo galin ayaa waxaan ka soo qaadanay meesha la yiraahdo Wisconsin waxa kaliya hadda sugayno ee insha Allah wax yar kadib daqiiqada yar kadib aan sugayno in lagu dhawaaqo waa Michigan dhaqso wuxuu bilaabay ninkii Trump hadda wuxuu bilaabay inuu qaraaro inuu yiraahdo dacwaan gudbinaya inuu yiraahdo Wisconsin hal lagu celiyo doorashada inuu yiraahdo Michigan waa la iga shubtay iyo dhawaaq iyo qaylibuu bilaabay waxa kale oo bilaabay inuu yiraahdo meesha la dhaho Pennsylvania gobolka Pennsylvania inuu yiraahdo hal la joojiyo tirinta magaraysa ay xisaabta la tiro codadka la tirinaya hal la joojiyo war odayga gacmaha ku dhignay xafiiska waa ka soo saaraynaa Joe Biden baa waralkeena aniga Joe Biden aniga shakhsiyan iyo dadka muwaadiniinta Mareykanka nooma fiicin runta xaqiiqda wanaagsan sababta Joe Biden wuxuu ballan qaaday inuu canshuurta kordhin doono inta hadda laga qaado haddii $400 tahay inuu ku dari doono 80 ilaa $100 oo kale inuu ku dari doono si canshuur badan laga qaado aniga dadka cadaanka iyo dadka shaqaystay Mareykanka degan ninka la yiraahdo Joe Biden uma wanaagsano waxa weeye canshuur badan buu naga qaadayaa canshuurtu nagu dallacaya nooma fiicno laakiin Joe Biden wuxuu u fiicnaan doonaa oo anigu u taageeraya waxa weeye oo aan uga soo horjeedsada ninka Trump la yiraahdo Trump waa cuzuri weeye waxyaabo badan oo Mareykan la isku dul noolaaba jiro anigu waxaan diri jiray dhageyst waxbaan idin sheegay Soomaaliya dad waxaan arkay Trump garaysaa iska daba urdayo macalaane anigu iyo dad badan oo Mareykan Soomaaliya oo Mareykan joogo waxaa jiray repatriation la yiraahdo nolol ogolaa oo sponsor oo aan dalban jirnay saalo kale waxaan soo qor markaan soo baxaya laga yaabaa inaan soo qortay 10 reer oo dadkayga walaalahay iyo magaraysaa ehelkayga si aan magaraysaa sponsor ugu diro laygu soo qaado odayga Trump markuu qabta 4 sano uu joogay wax sponsor la soo qaaday ma jiro wax dad qaxooti oo Soomaaliya la soo qaaday yaratay ma jirto dadkii wadanka soo galay waradida kulal meel kulul waxa joogay state waalan baa joogay state la dhaho waa duur cidla ee meesha joogay state qoladan Republicans kale kan hadda joogo hali Trump baa ku guuleystay state-kan Minnesota waxa ku guuleystay ninkii Joe Biden marka dhageysta dadkii soo galay Mareykanka ee xataa qaxootinimada ku soo galay ama ku soo galay sponsorka ku soo galay ay magaraysaa Soomaalida ajnabiga isugu jiray tigid yar oo 2 tigid haday qaataan oo speed ay gaari wadaan speed lagu qabto Trump wuxuu yiri wadanka laga saaro 4 sano u dambeysay Minneapolis dadkii aan saaxiibaha ahayn iyo dhalinyaradii maqaaxiyaha ka shaqeynaysa sharci sugayaasha Ohio iyo magaraysaa Minnesota waan waay war hebelaaway waa habeen dhaxdaas la baxay yaa la baxay ice police oo maxaa dhacay
ولا قريساي ولا ترحيله دب اللعلي ترى مركز دتك minority dhib badan buu ku hayay cunuu kaga taagnaa ma garanaysaa xaaladiisu bariga dhaxay laakiin dadka shaqaysta Trump waa wanaagsan oo kale dhaqaalii iyo ma garanaysaa dib noogu soo celiyay aniga inta dadka hadda ku dhacay muxuu ahaay coronavirus ee xaafadaha la joogay ee snapchat-ka meelaha la iska duubay anigu waadi weysay waan orday waan dhidaysaas oo dhidii waa shaqaysanay aadiyaad marka aadiyaad markala si fiican u sheekaysanayna meel baan dhex taaganahay farxad baan la dhigayaa insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo hooyooyinkii Soomaaliyeed ee Kakuma iyo Dadaab iyo ma garanaysaa Ethiopia qabri bayax everywhere lagu xanibay ee ayagoo diyaaradda sugay Trump cugdada ku dhacdaan idii sheegay dhageyso hooyooyin Soomaaliyeed qaxootiyo dad Soomaaliyeed oo la soo qaadayo la yiri berita ayaa diyaaradda ku qorantiino wad dhoofaysan yu Trump habeenku saa u qabtay subaxeediba wuxuu qoray ma garanaysaa warqad buu qoray hal joojiyiri aadiyad insha Allah caawa ilaa berri waa loordaya Joe Biden baa soo baxayo Joe Biden waxa ku qasbaynaa inuu Trump sixiyadii u galo dhan u dib uga noqdo bil kadib hooyooyinka Soomaaliyeed insha Allah niyada khayr u sheega waxaad soo gali doontaan Mareykanka waxaad imaan doontaan goboladii lagu talagalay waxa weeye nolol fiican baad gali doontaan guushana waxa weeye Joe Biden bay la jirtaa 22 cod oo electronic vote kaliya u baahanay waa Nevada oo 6 iyo 16 meesha la yiraahdo Michigan war waan idin salaamaya shaqo sii galay waan ordaya aad baan u kulahay kulaal waalan baa jiro salaam alaykum warahmatullahi